Assalaamu calaykum. Maxaa dhacaya haddii ay baduhu engegaan? Waxaa ku hoos qarsoon badaha siro badan oo yaab leh oo ilaa iminka ay saynisyahanadu awoodi kari laayihiin in ay si fudud ku soo helaan weynaanta badaha awgeed. Waxaana la hubaa haddii ay biyahaasi engegaan in la heli lahaa siro badan oo ka hoos toogan badaha. Waxaana u suurtageli lahaa saynisyahanada in ay soo bandhigaan raadad iyo doomo badan oo ku qarqoomay badaha hoostooda iyo fasiraadda waxyaalo badan oo inaga daahsoon. Haddaba mawduuca maanta ka hadli doono ayaa daaran natiijooyinka ka dhalan kara hadday baduhu engegaan. Intayna muuqaalka bilaabin, fadlan daawade subscribe na soo dheh, videogana like noo saar si ay dhiirigelin noogu noqoto. Daawasho wanaagsan. Jasiiradu Ekan ayaa waxaa lagu magacaabaa Yucatan al-Mexikiya, waxayna ka kooban tahay jasiiradani buuro iyo dhagaxaan waaweyn, waxayna leedahay qaabka goobada oo kale sida sawirka idinka muuqda. Waxaana suurtagal ah in ay goobadu haysato biyaha oo dhan, waxayna saynisyahanadu aaminsan yihiin inuu dhagax weyn ku soo dhacay goobta, waana mid ka mid ah siraha la xaqiijin lahaa haddii ay baduhu engegaan. Sidoo kale waxaa hubaal ah haddii ay baduhu engegaan in ay dad badan awood u leeyihiin inay arkaan tuubooyinka badda hoostiisa ka soo saara shidaalka, qaabka ay u soo gudbiyaan batroolka iyo gaasta dabiiciga ah, tuubooyinkaasoo mara badaha hoostooda. Waxaa kaloo la xaqiijin lahaa doomo iyo maraakiib ku qarqoomay badaha hoostooda qarniyo ka hor, waxaana ka mid ah markabkii weynaa ee taariikhiga ahaa ee Titanic, taas oo ka caawin lahayd saynisyahanada inay faahfaahin dheeraad ah ka helaan qaabka uu qarqoomay markabkaasi. Sidoo kale waxaa awood loo yeelan lahaa in la bayaamiyo sirta ku hoos toogan xagalka Bermuda, taasoo ay ku maqan yihiin dad iyo dunyaba. Waxayna saynisyahanadu ku adkeysanayaan in hoosteeda ay tahay buuro fulkaana, buurtaasoo dhererkeedu dhan yahay 1200 oo mitir. Fulkaanadaasoo qaboojin lagu sameeyay 30 milyan oo sano ka hor. Waxa kale ay saynisyahanadu aaminsan yihiin sababta ay ugu qarqoomaan maraakiibta dulmara ay tahay qaraxyadii badnaa ay sameyn jirtay buurta fulkaanada ahi. Ugu dambeyntii, baddu waa adduun weyn. Si kasta ay u horumarto tiknoolajiyadda ay gaadheen bani'aadamku, awood uma lihin in aynu xaqiijino qayb yar oo ka mid ah waxyaalaha ku hoos qarsoon badaha.